أحمد عبد إبراهيم أحمد سكاي iyo barnaamijkiisan runtii geyga Soomaaliland iyo qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland wax weyn dhalinyaradii iyo aqoon-yahankii dalka iyo daayirkii dalka wax weyn ka taray oo runtii u noqday barnaamij mudan in la muuneeyo mudan in khibradda ku duugan dadka qaranka horumarka shakhsiyeed iyo horumarka waxa weeyaan qaranka qayb weyn ka qaatay in ay maanta uu Axmed maalinba mid uu inoo keeno تاريخ ذا محمد وكوبان يدين شاقو محمد علي فرانس محمد علي عثمان وي مقعيسو صدحان وحاو قناع سده كسو دحجري قناع سيغي مدو كبادان شانيا لباتان سنو وحاو قناع سيغي ستو سوقو بيري كون سقاد بقول سقا شانيا تضبادي مركاسي او قناع سيغي حافظو ذا فاميلي بيسنس كاو لابلابين كشقيو محمد وحاو وحبرشيديسي هو صدحا كسو قاعتي waxay ku soo beegantay xiliyadii dagaalada marka waxa uu waxbarashadiisii hoose dhexe ku soo qaatay xeradii qaxootiga Dulcad Hargeysa iyo Boorama tiisi sare wuxuu ka qaatay dugsiga Sheekh Cali Jawhar ee Boorama waxa uu digrigiisii ka qaatay jaamacadda Amuud waxaana uu bartay maamulka iyo maareynta sidoo kale marka laga reebo ganacsiga waxa uu soo noqday Maxamed macallin oo marba jaamacadaha wax ka dhigi jiray haddana Maxamed waa maamulaha shirkadda Sahal Transport and Logistics su'aalahan waxaan ku soo fariisiyay khibradiisii waayo waxa ugu badan oo wax nagala wadaagi kara waa khibradda iyo intii uu joogay marka kullay su'aalahan ku bilaabi hordhaca isaga sameeysan doona deedna su'aalaha ka jawaabi doona Maxamed horta ku soo dhaw magaaladii Boorama reer Booramana waa tahay dhalinyaro aad u qalbi wanaagsan oo caawa diyaar u ah inay wax ka kororsadaan ku soo dhaw barnaamijkii khibrad wadaag oo noqotay qofkii 13aadna ku soo dhaw waan ku faraxsanahay waana ku mahadsantahay in barnaamijka aad naga aqbasho oo aad waliba si fiican noola shaqeyso wuxuu ahaa qof intii aan la shaqeynaynay ballanta ku wanaagsan wax kastana sideeda iyo si wanaagsan noola wada isagoo shirkadda dhan wada oo aad u mashquulsan haddana si wanaagsan ayuu noola soo shaqeeyay marka intaana waad ku mahadsantahay su'aasha koowaad waxaan ku weydiinayaa ganacsigii qoyska wax ma jira khibrada oo nagala wadaagi karto ama wax aad ka soo baratay oo ilaa maanta ku anfacay sidoo kale muddadii aad geediga waxbarashada ku jirtay wax qiisa oo aad kala kulantay oo iyaduna xiisalo dhalinyarada la wadaagi karto iyo muddadii aad macallinka ahayd saddexdaas aan isku ka daraya intii aad macallinka ahayd maxaa iyadana khibrad ku jira oo aad dhalinyarada u sheegi kartaa bismillaahir rahmaanir rahiim horta ugu horeyn aad iyo aad baan islaamiya dhamaantiin ka soo qayb galayaasha sidoo kale waxaan salaamayaa Axmed iyo tiimkiisa intaanan su'aalaha u tagin waxaan jecelahay inaan in yar oo public aan muxuu ahaa adila wadaago barnaamijyada noocan oo kala ah laga hadlayo khibrad iyo waaya aragnimo waxaan isleeyahay waa barnaamijyada ugu qiimaha badan leh ee qof dhalinyaro oo soo koriya imika ay tahay inuu ka qayb galo Axmed runtii waxaan aad iyo aad ugu amaanayaa sida uu xil iskaga saaray inuu daadihiyo barnaamij aan faa'iido toos ah isaga ka soo geli karin waxa la yaabaa intii aan dad Soomaaliyeed la shaqeynayay inuu ka mid yahay dadyooga kooban ee organizer-ka ah tusaale ahaan waxaan filayaa Axmed inaanu kulannay February January mid kamida labada bilood mishkay ahayd baan garanay January iyo February midkood kulankaygaas wuxuu kaga sii hadlayay inaanu barnaamijka ka soo qayb gali karo May iyo June mid ahaan yani 4 months ahead afar bilood ka horna qof sii qorsheeyo barnaamij noocaas oo kale waxay ku muujinaysaa inuu yahay qof diyaarsan aad baan arrintaa uga yaabay kumaan arag Soomaalida qorshayaasha noocaas oo kale ah inay leeyihiin mar labaad
waxaan iyaduna aada ii soo jiidatay oo anigana i dhiirigelisay oon traag u soo galay inaan arkay barnaamijka uu sidaa ugu xisaabtamayey ee uu update-ka mar walba reminderka ii soo dirayey uu lahaa barnaamijkii uu dhow yahay kaan ka dhigno yani discussion muddo dheer 4 bilood soo socday in wax faa'iido toos oo yani ka soo gelaya oo ama idinku aad siinaysaan ama anigu aan siinayo ama uu ka helayo lacag oo dhaqaale aan jirin ay tahay just inuu helo fursad uu dad badan oo weerarnimo raadinaya uu ku horkeeno in badan oo weerarnimo lagu tumayo يعني just inay noqoto platform ay ku kulmaan dad si uu kala faa'iideysanaya oo qodobka labaad ee aadkaan la yaabay waayo inta badan waxaanu naqaanaa qofku wuxuu waqti badan geliyaa waxyaabaha isaga gaarka u ah ama danaha gaarka ay ka soo gelayaan runtii arrintaasi aad iyo aad bay aniga lafteeda ii dhiirigelisay aad baan ugu ammaanayaa intiina halkan fadhida iyo inta daawanaysana waxaan jeclaan lahaa inta badan dadka danaha bulshada ka shaqeeya ama arrimaha bulshada ka shaqeeya haddii ay waayaan mahadnaqa iyo dhiirigelinta aakhirka waxay ku dambeeya barnaamijku inuu sii socon waayo marka in lagu taageero in ugu yaraan kalimaad ama afcaal dhiirigelinaya la helo in barnaamijkaas sii socdo anigu aan aaminsanahay inuu yahay barnaamij waxtar u leh sidii hadalkayga aan ugu bilaabayay markii ugu horreysay qof kasta oo dhalinyaro barnaamijku ka qayb galo oo uga faa'iido badan barnaamijyada noocan oo kale ah oo si shakhsiya qofka faa'iido uga heli karayo anigu ma tilmaami karayo waayo hadday tahay madal aroos hadday tahay siyaasad hadday tahay shir jiraa'id hadday tahay reero kulmi waxaasoo dhawaa danguud tan laakiin si gaara bay qof walba waxa laga yaabaa inay meel uu wax ka danaynayo uu ka faa'iidi karo ama uu yaraan uu ku dhiiran karo inuu qof qeyrkii oo la diir ah oo garanayo oo isku base yani meel ka soo wada jeedaan ama magaalo ka soo wada jeedaan oo dhibaatooyin ay challenge la kulmay ama horumar uu sameeyey uga faa'iiday inay isaga dhiirigeliso inuu tu lamida dariiq dheer ugu qaado marka horta aad iyo aad baan ku hambaleynayaa aad baan ugu mahadnaqayaa Axmed iyo tiimkiisa mar labaad iyo mar saddexaad isagana waxaan ka codsan lahaa barnaamijka inuu sii joogteeyo oo mar laba aanu ka niyad jabin markaan u soo noqdo su'aalaha kulley waqtigaas ka yar dhacay baan filaya markaa su'aalo man toos u geli doonaa saddex su'aalood baa ahayd midi ganacsigii qoyska iyo ay bilowgii bay ka hadlaysay midina waxbarashada iyo caqabadihii qodobka su-aasha saddexaadna waxay ahayd macalinimadii horta ganacsiga qoyskii aan bilaabay aan kusoo biray waqtigaas 790kii khibradda ugu weyn iyo waayagnimada ka helay waxa ahayd maanta halkan taagan ay keentay iyada la'aanteed haddaan fursadda heli lahayn way adkaan lahayd in aan waayo-aragnimo fara badan oo ku saabsan habdhaqanka joogtada ah sideedabana marka waayo-aragnimo laga hadlayo waayo-aragnimada maaha wax lagu gudbin karo hadal maanta dhan haddaan idiin sheego wax caqabadaha la kulmay iyo dhibaatooyin jira iyo way adkaanaysaa inaad 80% ama 70% accept garaysaan inay jiri karaan waxaa laga yaabaa ilaa aad la kulanto gidaarka madaxa kusoo dhufato inaad waayo-aragnimada heli karin laakiin maxay ku kala duwan tahay mar waa lagaga sii sheekeeyo awareness-kaaga ayaa sarreeya taxadir fara badan baad muujinaysaa marna indhiya dhagalaan baad u gelaysaayo duruufaha ku kalifaya markaa waqtigaa kugu dheeraanaya markaad og tahay waayo-aragnimada raadinayso iyo waxaad la kulmi karto iyo caqabadaha waxaa laga yaabaa inaad adigoo aware ah waqti yaroo kooban aad ku dhaafto marka aanad garanayna sida trial and error ku hadha yani ku day ku eeg wixii ka soo baxa inay waqti dheer kaa qaadato marka si kooban horta ganacsiga family-gu 796 August meelahaas ahayd laakiin si official 790 soo galay khibradda iyo waayo-aragnimada ugu badan ee waxa ahayd in dad la isdhexgeli karo in wax la iibin karo in ganacsigu muxuu ahaa nooca ganacsigu uu u dhisaangaraysan yahay weli marka laga hadlayo contextkeena Soomaaliyeed marka laga hadlayo si gaara waa isku wada mid uun Somaliland meel kastoo joogto waayo subcultureskeena wax badan kuma kala duwana waxaad baranaysaa habdhaqanada kala duwan ee bulshada sida loola dhaqmo qof cadhaysan sideed wax uga iibin kartaa maxaa laga baahan yahay waxyaabahan aadka waxa soo ka mid ah Allah yarxamay aabo maalmihii aan ku cusbaa meherada markaa maalin la jooga ayaa nin ka mid ah ganacsatada waaweyn ee magaalada Boorama ayaa wuxuu alaabtu naga iibsan jiray tijaaro weyn marka deeto warqadii buu soo qori jiro dalaba marka marba wax laga yaabaa inuu maalin dhamma laga yaabaa inuu 20 jeer min warqadii ku soo qoro mar 10 kiisho sonkoraan doonaya mar laba kartoon sigaaraan doonaya kalba wax deeto mar baan ku dhaniyo kalba waxa noo soo diray hal mar wax soo wada qoro markaasuu intuu aabay la diray ugu yiri adigu inaad macaamilka raali gelisa laga yaqaan sidoo doonayo ugu shaqeey
يعني maanta ma fahansan laakiin markay me customer care iyo customer service wax laga hadlayo ayaan fahmay macnaha ay leedahay in qofku sidoo doonay lagu shaqeyn karo marka horta de base waxay u ahayd qofka maanta aan ahay iyo isbedelka maanta laga yaabo in badan igu tuumayaan iyo shaqooyinka aan qabanayo maanta waxa base u ah horta khibradda noocaas oo kala hadii aan heli lahayn way adkaan lahayd in aad marka soo bilowdo geediga waxbarashada dhacdooyinka sida gaarka ah waxaan xasuusan karo waxa kamid ah saddex dhacdo mid waxay ahayd markii aan dugsiga sare ku jirnay runtii anagu waxaan ahayn dhalinyartii dugsigii sare ku bilaabay xilli aan dugsiga sare jirin boorama dugsiga sare xilligan gal waxay meelaha 97kii dhalinyartii ugu horeysay ee waxaanu ahayn leaving kooga dugsiga sare la bilaabay maxaa manhajka Somaliland sidoo kale dugsiga sare teamkii ugu horeeyay Sheekh Aljoor lagu bilaabay aan ahayn marka in dugsiga sare laga sameeyo boorama waxa jiray dugsiga kale oo Sheekh Aljoor loo oran jiray halkan urtu ku yaalay markaas oo dad is xilqaamay ay wadeen laakiin dugsi dawli ah Somaliland saddex dugsi baa ka jiray Faarax Umar iyo maxaa Qarax iyo Sheekh Aljoor marka iskuulka waxaanu tagi jirnay wax kasto oo maanta yaani official ka ah Sheekh Aljoor waxa la yaabaa maanta in la bariyay dariis muu jirin saacad ma jirin xilliga doon la soo gali jiray dugsiga maamulay ma jirin booqa nool yahay falay booqa xilliga doon furi jiray xilliga doon xili jiray gurigaan ugu quraactay jirnay yaani inta soo quraacayaan oo jirnay kaalay wax noo dhig mararka qaar waxaan ugu yimid jirnay inta siixan waayay soo shaqo dhaxay si buuxiye sabrada oo inta qoranayso haddana soo qoraacanayo marka xaalad noocaas aan ku kulnay laakiin waxaan isweydiin jiray waxa kamid ahayd imika si gaar ah la wadaagi karo xisaab trigonometry markaan dhiga jirnay proofta iyo waxa soo jirnay waxaan goor mu shaqeeyaa oo laga yaabaa in badan dadka ka mid ah isweydiinaysan يعني سؤالي أن لكل بجري وحن سكوتي يجري واقع دون شراء واقع دون كتير ما دام قناع سكوت شروط شوكتها إياه وحن المعلمين النورد يعني أنا relevant هاي واحد سلا أنا هين مركا واحد سويدين شري وحن يكش لقى شيء يعني قارمو ريالتي محو ينفع يعني إسلا سؤال أشياء جامعة ده هذا مرة واحدة تمد جامعة ده مركي عن قلة لبادي يكون وحن حسوستا maalmaha kamid aad bay ugu cuslaateen in isku wadi karo ganacsiga iyo jaamacadii marka waxaan door biday inaan ganacsiga u bayro dabeeto ninaan saaxiibanahayo ilaa imka saaxiibano dhalinyartii jaamacadii iga horeysay ayaan la tashaday waxa iyadoo nagu cusbeyd in la yidhaahdo waxbaa jaamacadda la xidhaa markaas ka yara xidha baan islahayo way ila gelaysay ninkaas wuxuu aad ila taliyey inta aan wadi karo jaamacaddan iska wado waxaan aad loo yaabay waqtiyada jaamacadda aan dhiga jirnay in macallimiintu waxay noo dhigayeen haddana aan ka waayo waaqacaynu ka shaqeynayo financial accounting bay noo dhigi jireen balance sheetka maalinta ugu horeysa markaad soo gasho fasalka ayaa macallin waxa lagu oranayaa xisaabtu inay isxirayso debit credit soo xidh xisaabaadka caadiga ee meheradahana habeenka ugu dambeysay sanad markuu dhamaado la xidhaa wixii aanu sanadka markuu dhamaado xili jirnay maalinta ugu horeysa jaamacadan lagu dhigay san waraxay waxaan deesaas ku qabanaysaa yani aad baan ula yaabay ayaan taan ula yaabay waxa kaloo iyaduna dhacdooyinka ka xasuusta kamid ah in by the end jaamacadda maraan ka baxnay ay igu kaliftay in aan anigu raadsado sidii aan iskugu xiri lahaa wixii jaamacadda aan ka soo bartay iyo shaqada ganacsiga si kale markaan u dhigo waxaan try gareyn jiray waqti badan gelin jiray weliba khaasatan qaybta xisaabaadka in macallinku class-kii noo dhigi jiray aan kaga shaqaysiiyo meheradda marka horta fursaddan haystay waxay ahayd meheradda family bay ahayd ciidan uga qaadanayay may jirin computer baan soo iibsaday $600 baa laga siiyay bariga desktop-ka waan xasuustaa I think waxay 2004 meelahaas account package baan raadiyay bal beach labaan soo iibsaday waan ku shubtay cid ay dhigtaan waayay aniga ba tutor baan haddana raadiyay tutorkiisii baan helay 3 bilood bay u qaadatay inaan barto inaan haddana daatadii ku shubo kalo mid delete gareeyo saan dooro galo mooyaane xisaabay tahay inay ga raacday baa laga yaabaa xisaabay bika laakiin finally after 3 bilood kadib waxaan helay report sax ay soo saari karayo marka maalintii aan trigonometry-ga ka fikirayay waxaan xagee laga shaqeeyaa ilaa iyo inta maalinta aan xisaabta isku xirmaysay wixii aan ka walwalay waxay ahayd mar walba aan raadinayay in waxaan aan dhiganayo iyo noloshan ganacsiga aan ku dhex jiro sidii ay isku waafaqi lahayd aan ka fikiro marka horta si guud saddexda su'aalood marka tamacalada laga yimaado labada hore waxaan leeyahay ganacsiga family-gu wuxuu biis u ahaa in khibradda iyo weernimada aan ka helay in yani
ay qaabayso qofka maanta aan ahay arrinta macalinimada markaan usoo noqdo runtii macalinnimaduna waxay iyaduna suuraysay in aan ganacsiga maanta aan ka fikiro macalinimada waxaan dhigi jiray koorsooyin more practical ah inta badanna waxaan u dhigi jiray ardaydu marka ay senior stageka marayaan labada semester ee seniorka oo marna aan dhigi jiray course account information systems la yidhaahdo marna kan kale PhD iyo account package kala dhigi jiray markii hore inaad macallin noqotaa shaqo fudud maaha sidoo kale inaad senior u noqotaana shaqo fudud maaha in kuwii sanadad ku horreysay macallin noqotaana haddana shalay saaxiib ahaydeen maanta macallin noqotaana waa arrin kaloo sii adag intaasoo dhan marka laga yimaado waxaa aad u la yaab badnaa in aka badan almost ilaa 9 sano dhigi jiray jaamacadda Camuud bay ahayd 9 sanadood ardaydan u dhigayay si gaar ah inaan tilmaamay ma jirto laakiin waxay ka midaysnaayeen inkastoo waliba markii dambe malaha ay soo yar fuudaatay waliba groupiskii ugu horreeyay ilaa 4 group ugu horreeyay in rag badan ay ku jireen oo jeclaa inay macallimiinta fashiliyaan markaad inay yara tahay dhalinyaro tahay saaxiibaad ahaydeen sanadaad kala horreyseen macallin maanta aad u noqoto su'aalaha ugu adag buu ku soo raadinaya su'aal ku fashilinayso ku weydiinaya ma oran kartid halkaa ay ugu joojiyaan soo fikiro waanad wax cadna hor dhigto marka inaad fikir fara badan waqti badan aad geliso ma gaargarayn karaysid waxa laga yaabaa macallimiinta imika inay prestations iyo wax dhigaan laakiin markuu classku yahay ama course-ka dhigaysa more practical yahay su'aalo suuqa yaallo kuu soo qaadaya markaasuu ku leeyahay mushkiladan xalli waay kan iyo kan maxay isku qaban waayeen marka waxay keentay taasi in aad uga fikirto dadaal fara badan aad samayso ujeedadan u socda dadaalka maaha waxaan u socdaa tii waxay u kaliftay markaan aad uga fikiro classkan gelayaba inaan waqti badanna sii geliyo preparationkiisa iyo su'aal kasta oo la weydiin kara inaan at least hints ka haysan karo oo more practical weliba wax waaqica qofkaad qancin karto waa qof aad rabto inuu qanco markaan almost ilaa 5-6 sano dhigayay ayaa waxaan isweydiiyey nidaamkan quruxda badan leh aad u dhigayso ardayda inta badanna course-kan dhigayay wuxuu ka sheekeeyaa waxa la yidhaahdo systemska companiyada ku shaqeeyaan structureka companiga internal controlka waxyaaba noocaas oo kale ah oo more practical oo qofku maalin walba uu la kulmo oo u baahdo dokumentiyada sida loo format gareeyo sida loo design gareeyo waa documenti company A uu company X uga duwan yahay company B company Y muxuu documenti duwan yahay yani waxyaaba noocaas oo kale ah in la design gareeyo si kale markaan dhigo waa designka companyga u shaqeeyo inaad samayn karto aad sawiri karto marka design qurux badan markaad ardayda u dhigayso adigii ganacsadaa tahay isla adigii aadan lahayn designka noocan oo kale ah dee markaa waxaad ka maran tahay waxaad dhigayso marka waxaa ii cuntami weyday inaan course-kii sii dhigo anigoo businesskii familygu aanu designka noocan lahayn taas su'aal bay igu noqotay marka aniga halxidhaalaygu ahayd number 2 waxaa sidoo kale haddana caqabad noqotay businesskii familygu maadaama uu scale-kiisuna koobnaa aanu diyaarsanayn in designka noocaas uu qaadan karo yani inuu structured company noqon karo kala duwan oo shaqaale kala duwan oo departments kala duwan leh inaanu noqon karayn oo duruuftu markaa ku jirtay aanu saamaxayn inuu businesska nooca noqon karo waxa qasab noqotay in ay jirto cid igaga habboon course-ka inaan dhigo ilaa iyo inta waxaan dhigayo quruxda balorta aan soo samayn karo marka iminka waxaan raadiyaan course-ka dhigo laakiin sababta horta course-ku joojiyay taasi ahayd khibradda ugu badan ee macallimiintan kala kororsaday waxay ahayd in aan ka fikiro in waxaan quruxda badan aan dhigi karo horta aan sameeyo anigu si qofku berri toona markaa uu dhigaysan karo intaasaan kusoo koobi lahaa maxmed aad baad u mahadsan tahay waxaan u mahad celinayaa oon halkii hore ku ilaabay barnaamijkan caawa waxaa suuro geliyey saddex goobood oo kala duwan waa Sahal Transport and Logistics Boroma Job Center iyo Telesom saddexdaas ay iska kaashaday oo inoo suuro geliyey oo sponsorka caawa barnaamijka maxamed aad buu mahadsan yahay arday badani kulli waxay isweydiinayeen wani wixii xisaabtan la inoo dhigayo kos iyo sahinka maxay nolosha iga anfacaysaa ani taasay igu adkaan jirtay berigan yaraa aad dadka u dhigaysa ama design-kan la waa inaad samaysaa markaa su-aasha koowaad waxaan ku weydiinayaa shirkaddan Sahal Transport siday ku bilaabantay noocan ay tahay shirkadda isgaarsiinta maxaad ku doorateen inaad farmasi furataan ama beeraha ka shaqeysaan maxaad kaga doorateen nooca u doorateen markii shirkaddan aad hirgeliseen wax caqabada oo idinka hor yimi ma jiraan caqabadaha sideed u xalliseen fursadaha
shirkadiinu sidee uga faa'iidaysataa fursadaha suuqa jira haddaanay fursado jirin sideed idinku fursado u abuurataan company ahaan wax maalmo xiise leh oo intaa shirkadda aad joogto hoggaan ahaan ku soo maray oo aad nala wadaagi karto waxogay taariikhda sidii sahal ku bilaabantay kolley dee madal walba taariikh gaar ay leedahay waxaa laga yaabaa markaad dee ka hadlayso business team la hadlayso taariikh gaar ay macna ku xasuusinaysa markaad dhalinyaro noocan oo kale la hadlayso da-dan leh waxaa laga yaabaa inaad taariikh kale ku abuuranto yacni way badan yihiin factories fara badan baa qofka wax ku dhaliya qaarkoodna way ku liid gareeyaan oo go-aan qaadko qaarkoodna way support gareeyaan marka wax laga yaabaa in madalo kala duwan taariikho kala duwan ka kala sheego marka macnaheedu maaha inaan marba meel isku egeysiinaya laakiin marba halkan joogo waxaan xasuusanayaa taariikhdii gaarka ahayd ee ku koobnayd sahal horta xilligan aan ka fikiraynay meehe waqti dhow almost waxay ahayd 2011 almost waxaa filaya iminka waa 11 sano ka hor waqtigaa internetna muu jirin DSL baa la dhaaba jirisaan filaya oo kombiyuutarada desktop lagu xidhan jiray nolosha nooca maanta ay u eg tahay uma ekeen sahalka maalintaan ka fikirayna noocan mu ahayn fikradda sahal originally waxay ka timid inaan aada u saaxiibanahay ba horta markii ugu horreysay say ku dhalatay laakiin qofkii ugu horreeyay la wadaagay baan aniguna ahaayo saasaan horta iskula jaan qaaday marka waxaan arkaynay inay tahay baahi jirta oo ay dadku u baahan yihiin weliba qaybta transportku muhiimka badan ma ahayn waxa muhiim ahaa qaybta logistics iyo alaabaha isku diristooda su-aalihii aan aadka isku weydiin jirnay waxaa ka mid ahayd new sectorkan miyaan improvement lagu samayn karayn intaynu ognahay waxa laga yaabaa dhalinyartiina inaan in badan soo gaadhin ama soo gaadhin ugu yaraan berigii hore kaariyin baa jirtay waxaa jiri jiray muxuu ahaa qolooyin iguna kaarinta la shaqeeya gaadhigu magaaladu dhex wareegi jiray waxaa laga yaabaa in meelahan dhigtay ka bixi jireen markii ugu horreysay halkan waxay ahayd iminka ku taalo muxuu ahaa heema books agagaarkiisa markii dambe haddana dhigtay u guurtay gaadhigu suuqu dhex wareegi jiray laba qof baa saarnaan jiray kolba halkii dhigtoodana tegi jiray uu soo noqon jiray uu wareegi jiray dadka waxaa aada uga shaqayn jiray dadka talax gabay ama noocan dropout-ka innaga u naqaano ayaa darwanaynta gabadha loo dhiibi jiray gaadhiga isagaa ku noolaan jiray waxa laga yaabaa xataa in la support garayn jiray marka waxaan isweydiin jirnay miyaan la heli karin darwanayn noocan oo kale su-aashaan isweydiin waxaa ka mid ahayd haddii jaamacadda camuud ay heshay darwanayn noocan oo kale oo on time oo 6 subaxnimo diyaar ah maxaa u diiday private company inuu heli karo yani dad wasta hypothesis su-aashaa isweydiin horta halkaas ka soo dhaaqday marka waxaa noo muuqatay inay u baahan tahay un dadaal iyo isbeddel laakiin la samayn karayo sahal madasha noocan oo kale waxaan ku xasuusanayaa iyadoona taariikhda labaad noqonaysa aniga ninkaan saaxiibahanayba waxaan isweydiinay niyo mustaqbalka maxaan rabaa inaan noqono isagu wuxuu hi siyaasi ayaan rabaa inaan noqdo marka 2015 marka la gaaro dee waqtigaa waqti fog bayna la ahayd inaan ganacsi ka baxo ganacsi siyaasi aan noqdo oo mustaqbalka waddanka aan wax ka qaban karo aniguna waxaan doonaya ganacsada influential inaan noqdo marka waa inaan imika kasii shaqayno sidii halkaa aan u gaari lahayn sida taa unu gaarina waa inaan ganacsi abuurno inoo shaqeeya ha dhowto inaguna aanu shaqooyinka markaa aanu ka tanaasul ka ritaar garayno aanu hawlo kala qabsano that was madasha noocan oo kale caawataa ku xasuunaya sahal riyada markaa nagu jirtay oo qaab noocaas oo kale ayaan uga fikirno yani business system le shaqeynaya anaga aan noo baahnayn dadku ay manaafacaadsadaan anaguna aan ka noqono beneficiary qayb ka mid ah laakiin by the end annaan weligeeyo ganacsi kusii jirina waxyaaba kale aan iska gallo oo hobbiga ayaa noqonaya horta taariikhda kooban ee sahal caawan ku xasuusanaya taariikhdaasi ahayd fikradda noocaakaasay ku timid su-aasha labaad ee ahayd sida maxaad ku doorateen adeegan taana waniga ka jawaabay oo waxaan u arkaynay inuu yahay business maadaama uu hamigaygu yahay inaanu ganacsiga ka baxno markaad 2015 noo ahayd laakiin waa lasoo dhaafo waynala yar simbirraxatay goorta nagu dheeraatay wax laga yaabaa inay waqti dambe qaadan doonto waxaan u arkay inuu yahay businesska naafici kara ee systemna leh baahidna ay jirto lagana wareegi karo marka adeegaas baahidiisuna waqtigaa ay taagnayd isbeddelna laga samayn karayay way jiraan caqabado marka laga hadlayo transportka horta anagu xilligaan bilownay sahal wuxuu ahaa kombanigii labaad bariga galbeed shirkad la idhaha naga soo horreysay labay dadka isku qaldaano horta shirkad naga soo horreysay bay ahayd waqti badanna
ku qaadatay inay suuqa soo gasho laakiin sahal wuxuu ka mid yahay shirkadaha ka duwan yani nooca maanta uu businesska Soomaaliland transportka Soomaaliland u ekaaday waxa inta badan ay dhacdaa waxa transform gareeyay ama saameeyay sahal waayo company inta badan shirkaduhu ay u wadeegayeen horta taasi waxay keenaysaa markaa in caqabado kale nooc kale la kulmi karto caqabadaha haddaan soo koobo 2-3 laba caqabad baa ku soo koobaya magaalooyinka sheegi maayo laakiin caqabadaha aan la kulanay baan ka jawaabay la wadaagi doonaa magaalo ka mid ah magaalooyinka ka shaqeynay imika ayaa waxay ku heshiiyeen nimankii transportka haystay markay maqleen sahal baa xafiis laga furayaa inaanay sahal soo gelin waqti dambe ahayd inay 2016 ahayd baan filayaa marka waa waqti dadku ay u riyaaqeen oo jecel yihiin ma saameyn karaan dawladuna way support garaynaysaa nidaamka noocan ee privatization in companiyada transportka ay private noqdaan laakiin iyaga dantooda kuma jirto marka magaaladii bay waxay geliyeen propaganda odhanaysa sahal han laga qabto waxa la wixii ku jiray madaxweynihii waqtigaas Somaliland ayaa wuxuu booqanayay jaamacad buu maanta ka furayay ay qalin jibineen dhalinyar baan filayaa waxay arkeen inaanay waxba ka qaban karin dawladdiina la shaqeynayso nidaamkii support garaynayo dabeeto waxay ku heshiiyeen in madaxweynuhu markuu magaalada yimaado iyaga iyo faamiliyada carruurtoodu ay ku mudaharaadaan kaboon kor u taagaan dad was challenge nagu weynaa habeennimadii baan ogaanay markaa inay rabaan mudaharaad noocaas inay sameeyaan oo ay yidhaahdaan madaxweyne sahal laga qabo waa arrin adag in magaaladan ay kugu mudaharaado marka waxay nagu kaliftay markaa inaanu ka campaign garayno sidii iyaga aan u kala siixin lahayn habeennimadii taas waa dhacdooyinka aan ku xasuusto dhacdada labaadeen ka xasuusto intii aan sahal wadnay caqabadihii aan la kulanay iyaduna waxaa ka mid ahayd in magaalo kale oo Soomaaliland ay saraakiishii booliiska iyo dawladdii iyo ay noo heshiiyeen inaanan ka shaqayn waxa qasab noqotay markaa in aanu qalad samayno si aan u shaqayno that's the only reason yani waxa la nagu qasbay inaanu la heshiino qolinka adiga u bilowno iyagana nooma ogola inaanu si xor u shaqayn karno marka waa inaan heshiis la galo heshiiskan la galaynaano wuxuu noqonayaa inaanu u hogaansano in nooca iyaguna raalli ku yihiin aniguna aan raalli ku nahay loo wada shaqayn karo markii ugu horreysay qoladii maamulkii waxay naga codsadeen inaanu bil waqtiga siino waa sax baan ku dhibishaan siinaa bishaas markay dhamaatana aynu isku soo noqono marka waxaan saadaalinay bisha kadib maxaa dhici kara waxaan isku haytustay in bisha kadib ay iman karto in xaalada ammaan awgeed la yiraahdo leedinmo ogola adeega imika inaad bilowdaan waqti dib u dhiga si taas aan u dhicin waa inaan qalad samayno marka waxaan sameynay inaanu shaqada iska bilownay waayo waxaan arkaynay maanta markaan shaqada iska bilowno in iyaguna ay reaction samayn doonaan marka intaana shaqada bilowno waa inaan qoraal la samayno qoraal ogeysiisa markaa notiisa halkii ahayd ayaanu madaxda kala balansanay inaanu soo noqono soo fadhiisano oo go'aan ka soo baxo ayaa dhinac kaliya intaan go'aan iska qaadanay baan warqad ogeysiisa qoraan leenahay adeeg baan bilaabnaa saa ula socda si low profile-na xafiiskooda waan u gaarsiinay xataa in akhristaan ma rabno shaqadii baan bilownay markaan shaqadii bilownay magaalada tiimkii shaqadooda way kaceen way jajabiyeen xafiiskii gawaadhidii anaguna happy baan ahay bunbaan cabay maalintii gaadhiga la jajabinay waxaan arkayna xalkii maanta ay that was sidaasay shaqadeena markaa ay ku bilaabatay marka horta caqabado way nagu badnaayeen laakiin dee techniques fara badan oo kala duwan oo hadday mid meel kuu shaqaysato labaad ku shaqeeyeen ayaa dee aan ku xaliyay intii aan sahal ku jiray almost imika dee waqti yarba maaha waa 7 sano waa mararkaan isdhaado madaxweynayaasha 5 sano ay ku yar yihiin 7 sano waqti yar maaha runtii waxaa i xiise geliya in aad arki karto arrin tii caawa aan axmedna ku ammaanayay ka mid tahay waxaa laga yaabaa inaad la kulanto macmiil cabanaya ama shaqaale cabanaya oo inagu aynu dhibsanno laakiin anigu aan habi ku noqdo inaad qof cabanaya aragto oo hadlaya wuxuu ku siinayaa message buu ku diraya marka waxyaabaha aadka i xiisaha geliyeen aadka u jecelahay ilaa haddana aanan weli islaahay mala cycle-kii barashadooda ku jirtaa waxa weeyaan in intaad soo akhrido theories yani buugaag waxay yidhaahdeen oo la qoray oo ay wax ka sheegeen inaad tijaabiso effectiveness-kiisa isla markaana wixii aad aragto wixii oo shaqaynaya
dhacdooyin badan noocaas oo kala waxa si gaar ah u taabanaya waxa la dhahdaa leadershipka waxa la dhahdaa managementka oo waliba leadershipku yahay kaan islahay malaha uu ku aad ban u arkay saameyntiisa sidoo kale in halkan markaad joogto qof dibadda ka yimid aragtiyaha noocan oo kale ah transportku way kooban yihiin qof waddanka uu joogay wuxuu ku soo kordhin karo yani waxaad u baahan tahay inaad exposure samayso dibadda u baxdo wax soo eegto laakiin weligii intaan dibadda u baxay transport industry wadamada kale ma soo eegin haddana taas marka waxay ku diidaysaa inaad indhafurnaato contributionka development ku samayn kartaan wax ku kordhin karto ay koobnaato dhinaca kale haddana qof dibadda ka yimid oo waddan horu maray transportkiisu yani horumar badan sameeyey inuu halkan ka shaqeeyaana way aragtahay iyaduna way contextka u diidaya marka inaad isla yeelato qof dadkan luuqaday ku wada hadlayaan la hadli karaa la macaamili karaa haddana horumarna soo arkay waxa u baahantay inaad noqoto laba qof qofkii wax soo eegtay ee wixii inuu implement gareeyo doonayay haddana la macaamilayay dadka halkan jooga number 1 number 2 waxyaaba aad ka xiise geliya waxa ka mid ah in mar kasta oo doonayna inaan wax samayno caqabada ugu horeysa ka bilaabato cidda ugu horeysa shaqada inay tahay qabato marka waxaad u baahan tahay inaad support team hesho adiga qanciso oo iyagu kula hawl gala marka si taado hesho waana dadka siiso fursad yani ay ku doodi karaan kula dacwi karaan aad si marbi kartaan aad qancin karto inta aad qanciso inta badan aad qancin kartaa because iyaga dadka aad qancinaya marka waxa laga yaabaa in day to day abaad ku raaxaysto shaqada marka xaalada noocaas kala kulmayso su-aasha kale maxamed aan weydiinayo aad baad u mahadsan tahay ka shakhsi ahaan ganacsigani ma wax hiba ah ma dadaal shakhsiyeed oo aqoon lagu ladhayba mid waa taa mise waa karti kale su-aasha kale labaad maxaa sababa shirkaduhu inaanay markay aabo shirkada la sameeyo waxa jira shirkada 10 sano taqaano meel uun taagan inaanay horumar sameyn qaarkoodna inay horumar sameeyaan sidaas la mid ah maxaa sababa shakhsigu markuu shaqo tago inuu qof 10 sano hal position joogo qofna uu inta position uu isku maro labada dhanba hadaad eegto maxaa sababay isbedelkaas way horta su'aasha hore labadan kale isku eegin baa laga yaabaa ganacsigu horta inaanu hibe ahayn marmaranaya aniga hibeygu maaha waa run family business baan kasoo jeedaa أبا الله يرحمه سقط ترى ولا عقب فبادر الدكان يركل هنشري مشروع عن تقوى شعره لكن ده كنا والله به هذا مصاريف تحافظهم ونمو وسكر نشري مركا ما أمسنوا تينو قناع شو هبيه أنا أقول لك مرت أنا الشخصين هبيه جماعة وواحد ظروفه هاي البريين ما أنا بحال ده شفتوا مدة تعالي سا مركا أكو حرات يبغى قصور رقم مركا واحد سلاهي وواحد برانكرو قف كستانو برانكرو كلية واحد وبعض هايوم ما نسلاهي قف أنتوا input كليو أنتوا concentration وقت وسيا واحد واحد تصرع وإن وسبورت هلو عيدو لا تشهدوا counseling أم عيد كلا تلسا وهل كان نسلاهي إنه الصومالي هان مشكلة دوينا لا كلنا واحد ويا قف كستو دنيا ولا شيء إنه بلعبه وإنه فرمزيرو كبلعبه ويعني ماذا قف هبل وصومري هذيك وحبك عم تريسو هذيك إنه زيرو كصوب بلعبه قف البون زيرو كبلعبه مركا قف كل وقت يسوق هو بيهاي inteen leegu waqtigiisii uu qaybsami karaa xilli uu wax barto xilli wixii uu bartay uu maxaa shiilo iyo xilli wixii uu bartay ee uu shiilay wadana implement garayo waa saddex stage mid walba waqti uu baahan yahay duruufuhu kuma saamaxayaan xilliga doonayso inaad waxaan gashaana waa xilli majuur tahay ugu yaraan markaad xaas yeelatay qofku ku qasbaysaa inaad fikirto si aad ganacsi u gasho marka adigoo teedi foodi maraya markaas tirado wax gal de lixdan jirku baad u balgaabin waxaad manaafacasato waayo intii waqtigii intii badnayd waxa ku soo qaadatay learning process marka waa meelaha islahay mushkiladaasi dhalinyarteena Soomaaliyeed mar walba way haysan doontaa marka si kooban waxaan islahay aniga ganacsigu hibeegu ma aha laakiin waxaan arkay fursado ilaahay nagu ilhaamiye alxamdulillaah rabbil caalamiin caqabado badan iyo fursado jiray iyo dadaal qofku sameeyo iyo wixii uu bartay iyo bulshada la nool waxay ku contribute gareeyaan ayuunba qofka fursadaha siin kara oo kaga faa'iideysanayo tan kale ee kombaniyada maxay isbedel u sameyn laayeen horta niyo adduunka wax meel taagan ma jiro wax rijiri ma jiro even adiga laftaadu mar dibadda isku noqoto every 5 years isbedel baa samaysaa isbedelka laba mid ku yimaada ama waa lagu qasbaa ama adiga dooqaaga iyo rabitaankaaga ku sameeya marka kombanigu inuu isbedel sameyn waayo waxa laga yaabaa inaanu marka hore fishan lahayn
ama fishankiisii uu gaadhay deetana ay doonayaan in review gareeyaan uu uga baahan yahay laakiin aanay garanayn marka waa marka uu comfort zone galo waa marka uu happy noqdo companygaasi si kale markaan u dhigno marka dee aan dhigi jirnay businesska waxaa la jiro waxaa dhaha business life cycle 4 stage buu maraa introduction stage-ka growth stage-ka maturity-ga iyo declinationka declinationka markuu galo waa markaa stack company waa markaa aan wax badan inuu soo kordhin de siyaabo loo waxa jira haddana dib uu soo bilaabo introduction stage dib ugu galo ama reformation lagu sameeyo marka waxaan isleeyahay companida haddana strategy aan lahayn vision iyo mission iyo meel laga socon aan lahayn ama cid hogaaminaysa aanay jirin isbedel ma samayn karaan mina meel u taagnaadaan ba laga yaabaa duruufaha bedela oo ah trendiska jira si kale haddaan u dhigo 10 sano ka hor waxaa laga yaabaa inay 2012 bay noqonaysaa 2012 intiina halkan fadhida intay smartphone haysatay wax laga yaabaa inay koobneed inta myfi gacanta ku haysatay inay koobneed ba laga yaabaa inta facebook lahayd inay rayd ba laga yaabaa 10 sano ka hor telefoonka aynu ku hadli jirnay wax laga yaabaa inuu 100% ahaa direct calls ama telefoonkan tooska inuu wada hadalo GSM-ka la maro ama kaarka la baro maanta halkee la maraya maalinta waxa laga yaabaa dadkii dibadaha inoo iman jiray dibadaha nagala soo hadli jiray kaar bay iibsan jireen kaarka iga dhammaanay bay odhan jireen inagu maynaan fahansanayn maanta laakiin maxaa laga iibinayaa package waxaa lagu leeyahay $5 ku shubo hel intaasoo GB oo data iyo intaasoo meelood ku hadasho this is the difference marka de haddii la jaan qaadi waayaan businessku de halkii ma taagnaysa kuwa cusub markaa la jaan qaadaya marka horta waxaa jira movies iska socda oo rabaaniya dadku waa jilayaan ama gaala ha noqdaan ama islaam ha noqdaan ama ilba ha noqdaan laakiin moviesku waa wax socda oo rabaaniya companiyadu waxay ku xortay siday uga faa'iidaystaan ta shakhsiga markaan u imaado shakhsiguna taas may la mid tahay qof muxuu doonayaa ujeeddada aad shaqada u gashay maxay tahay ujeeddada ganacsiga aad u gashay maxay tahay waa inay ku cad yihiin qodobo 1 2 3 4 5 ku qoran oo ka yeedsiin kara inaad waxyaabaha qaarkood noo tidhaahdo qasab ma aha inaad mar walba yes tidhaahdo maamulkaaga yes ma odhan kartid mar walba mararka qaar baad noo odhan kartaa mararka qaar waxaad odhan kartaa shaqada ay waxaas waafaqi waayi kara sidaa doonayso inaad u shaqaysay iyo siduu companigu doonay inuu shaqeeyo dee waad inaad ka tagto marka xaalado noocan waana diyaarsan karto marka qofku haddii uu yaqaano wuxuu rabo dabcan isbedel buu sameynaya uu koraya shaqadan inuu ku korayo maskaxaana uu koraya laakiin qofku isbedel ma sameynayo haddaanu garanayn wuxuu doonayo number 1 number 2 isbedel ma sameynayo haddii wuxuu doonayo xilli horeba oo helana isbedel ma sameynayo haddaad lacag u baahnayd mushaar fiican lagu siinayo shaqada ay kugu filan tahay carruurta inay kuu korayso maxaa ku kalifaya inta gurigaaga iska joog mushaarka fiicanna qaado maxaad riski u qaadanaysaa yani isbedelkuna riski baa ku lamaan marka dadku way afford garayaan way necab yihiin riskiga isbedelka ka dhalanaya marka damoor qofku uu riski qaadasho badan yahay damoor uu horumar samayn karo damoor uu qofku riskiga necab yahay damoor comfort zone uu galo damoor comfort zone uu galana damoor isbedel aanu samayn karin marka waxaan idinku dhiirigelin lahaa anoo su-aashaas idii raacay dhalinyar baad tihiin xilligan waa xilliga waqtiga lagu kifaaxo riskiga ugu badan qaata shaqooyin badan ka shaqeeya haddaad doontaan waa inaad laakiin waxaa muhiima uun inaad taqaano halkaad doonayso inay kuu qoran tahay marka taasna intaasna ka horlaha su-aashani waxay tahay dhallinyarada inala joogta iyo kuwa ina daawan doona ee pageka khibrad wadaag iyo youtube-keena khibrad wadaag inaga daawan doona waxaa laga yaabaa qaar badan oo u helan inay fursado ganacsi abuuraan inay jiraan ma jiraan fursado ganacsi oo aad qaarkood hadda u tilmaami karto ood odhan karto ganacsiyada noocaaya waa jaanis jira isla markaana kharash yaroo kooban oo dhallinyaradu heli karaan maaha 10,000 oo aanay waxay heli karaan oo wax ku bilaabi karaan miyay jiraan fursado noocaas aad u tilmaami karto su-aasha kale ku weydiinaya waxay tahay aqoonta businesska ee jaamacadaha taala iyo aqoonta businesska ee suuqa taala ganacsigeena caadiga iyagu bal labadaa maxaad iyaga laftikooda nooga sheegi doontaa way su-aasha hore haddaynu ku horeyno ee ah fursado ganacsi intaana su-aasha ka jawaabin waxaan jeclahay horta bal inaan waxoogaa aragtayda waxaan ka hadlay horta waa aragtayda aqoon ma aha just one aragtayda waxa laga yaabaa laba arrimood oo inagu si aynu u fahansannahay inta badan markaan sheekaysanayno ayaa laga yaabaa in haddana anigu sidaan u arkay ka duwan yihiin dadku waxay u arkaan inay fursadu tahay waxa muhiimka laakiin anugu uma arko fursadu inay muhiim tahay fursaduhu waa inta laga sheekeeyo
inta imika ka sheekayno halka markaan gidaarka fadhino wallahi halka fursad baa ku jirta intaas weeyaan marka opportunity ma fursada opportunity fursadu ma guushu ma fursada laakiin guushu waa sida loo meedhanayo sida fursad looga dhigayo si kale markaan u dhiraado macnaha guusha lagu gaaraa maaha fursad ganacsi oo hesho tusaale haddaan siiyo bal nin walba intaad maskaxdaada ku haysa ganacsi intii ganacsidii abuurmayay 5 sano ugu dambeeyay oo ah inta maskaxda xasuusan karto ganacsi cusub miyaad aragtay mise ganacsi hore la fartaystay ma aragtaa ganacsi hore la fartaystay ma aragtay magaalada Boorama waxa ku soo batay sanadkii hore iyo sanadkii horeeyay cafeteriyada daawalba bilaabun maynaan hayn bunka meel ma ka cabbi jirnay laakiin bunkii ma meel gaar ah loo soo saaray ganacsiga ma la fartaystay ganacsiyada imika Boorama xoog ugu batay arko waxa kamid ah dharka awalba dhar la yeesho jireen hebelaa iibin jiray laakiin dharkii baa la sii kala saaro kii dumarka iyo kii caruurta iyo loo sii kala saaray marka fursado intii hore la tafaariqaysanay inta ma la kala xalaa fursado cusub la abuuray ma jiraan marka ma aaminsana anigu inay jiraan fursado la isku tilmaamo oo halka fursad ku jirta ka shaqeyso haddaan ku idhaahdana waliga ka shaqeyn maysid fursadu waa in adiga ku dhalato waa inaad aragto yani sida u sameynayso waxa macnaha sameeyaa waa sida qofku u qabanayo ولذلك خلقهم بعد يعني بني آدم waxay kala duwan yihiin bini aadan yihiin imsa company transport baa jira mid maaha sida shaqada u qabanaysa mid maaha haddii system company kala qaadataan kuma shaqeyn karto waayo waxa management philosophy-gu wuxuu saameeyaa company-gu sidoo uu shaqeynayo marka ma horta waxaan ma aaminsan anigu in fursado ganacsi jiraan idin ma tilmaami karo haddaan idin iraado fursado ganacsi baa ka jirana wax laga yaabaa inaan wax badan idinku soo kordhin laakiin astaamana siin karaa astaamahaas waxa weeye qodobka labaad u socdo inagu waxaanu aaminsanahay fursadda ganacsi ama fikradda ganacsi markay dhaqaalo badan ku kacayso inay profit badan sameynayso ganacsiga adduunka waxaa la dhiirigeliyaa fikradda ay ka dhaqaalo yar tahay the less investment ay u baahato the more ay tahay profitable ama ay faa'iido sameynayso marka haddaad aragto fikrad ganacsi oo $1,000 lagu set up garayn karayo that's biggest opportunity aad qaadan karto marka waxa laga fikiraa sidee fikraddan ganacsi ay u qaadan kartaa dhaqaalaha ugu yar ee lagu maalgelin karo marka taasna waxaan oran lahaa kow ka fikir laba qodob waxaan ma yahay wax shaqeyn karaya feasibility iyo viability study yani analysis kare wax shaqeynaya ma yahay baahi ma jirtaa dhaqaalaha ku baxaya intuu leeyahay arkaa waxa kaga buray markaa aqoon dhan barto marka anuu idinma odhanayo fursad ganacsi baa jirta oo imika aan leeyahay egas iyo way weeyaan ka faa'iideysta laakiin waxaa jira isbedel ganacsi oo xoog badan oo ay ka faa'iideysan karaan intiina maanta halkan fadhida iyo generationka technology age-ka ku jira waa wixii ka yar 50 jir 50 hadduu dhaafo technology age-ka u dhaafay wixii marka between 20 to 40 ama 50 maximum waxaa jira fursado waqtigu uu siinayo adduunku wuxuu u wareegaya waxa la yiraahdo in la technologize gareeyo in shaqadii in ganacsiyada oo technology la geliyo taa wax ka faa'iideysan kara cidda maanta oo maskax furan ee technology-ga la jaan qaadi karaysa marka technology-gan mar walba aynu ku jirno aynu isticmaalayno haddaad yani u fikirto si dheer waxa laga yaabaa fikrado jira imika inaad adiguna u bedeli karto in ay technology-ga la jaan qaadi karto adigu aad ku dhaqaaqi karto ku dheerayn karto marka waqtiga maanta ayaa wuxuu dhalinyarta siinayaa inay ka faa'iideysan karaan in ka badan intii ay ka faa'iideysan karayeen odayaashii ganacsiga ku jiray taas waa fursadda ugu weyn ee aan arkaya cid kastoo maanta idinla midi ay ka faa'iideysan karto number 1 number 2 ganacsiga kasta oo aad gelaysaana ka fikir inuu technology-ga la shaqeyn karo haddii aan la shaqeyn karin waa dabayshii ka hor imanaya marka dabayshana kama hortegi kartid ma shaqeyn karayo marka ganacsigaagu waa inuu noqdo technology friendly waayo adduunyadiiba waxay u socotaa dhinaca technology-ga su-aasha labaad waxbarashadan jaamacadaha lagu dhigo iyo ganacsigan ka jira waddankeenu muxuu iskula falgeli laayahay baan u fahmay si kooban waxaan isleeyahay waxay u baahan tahay mujaahidiin isla falgeliya ganacsigu wuu shaqeynayaa macallimiintu waxay noo dhigaana waa run laakiin waxaa la laayahay dadkii tanna qaadan lahaa halkana kaga shaqaysiin lahaa si kale markaan dhigo contextualization waxa la dhaho inaad waafajiso halkan sida uga shaqeynayo
inta badan waxa laga yaabaa chapterrada aan ku dhigano managementka iyo accountingka iyo sociology waxay doonaan noqdaan waa aqoon reer galbeed waa study laga diyaariyey reer galbeedka waa analysis meelka laga sameeyey waxa laga yaabaa halkan marka la doonayo in laga falgeliyo inuu ka duwan yahay sidoo halkan uga falgelayo iyo sidoo uga falgelayo waddan kale oo shisheeya marka keliya halkan waxaan kusoo koobi lahaa waxa uu baahan yahay in la iswaafajiyo mujaahidiin dad u hagar baxa waqti geliya ayay u baahan tahay taasina time bay u baahan tahay si kale markaan u dhigo waxa u baahan tahay adoo jaamacadda degree soo qaatay inaad aqoontii jaamacadda halkaas ka dhigto experience inaad raadiso haddana experience markaad hesho labadii aad isku jacburiso haddana aad ka shaqaysiiso haddii aad injineer kasta tahay oo aanad aqoon kuuriga iyo wastaadka iyo foormaanka iyo jarajarada mar laba injineernimadaadu macno badan ma samaynayso macallinku intuu kuu dhigayna ma qiimeyn kartid kuma qiimeyn kartid gurina kuma dhisi kartid laakiin waa inaad wastaadka iyo kuuriga la murmi karto waa inaad kula murmi karto luuqadiisa qaldada waa inaad taqaano imse kiilo baa gasha waa inaad adiga laftaadu gacmaha la geli karto halkaa markaad taagan tahay ayaa waxa keliya isdheeriyiin ee dheerta waxa weeyaan conference kalsoonidan waxaa siinaya aqoontaad haysato oo adigu waxaad leedahay reference iyo marjac aad u noqoto isagoo laakiin marjac ma laha maalinta isu kaa xidho adaa ka dheeraynaya inta ka horeysa isaa kaa dheeranaya because of weerarnimada in the short run weerarnimadaa dheeraysa in the long run aqoontaa dheeraysa marka waxay iskula falgeli laayihiin waxay u baahan tahay un waqti iyo mujaahidiin dad yacni waqtigooga u qura si ay u hubiyaan waxaan ma shaqaynaya mise ma shaqaynayo iyagoo mar walba guidelines wada jira taasina waxay u dhici leedahay ardayda jaamacadaha ka soo baxaysa laga yaabaa badankooga inaanay waqti badan u hurayn inay from zero ama from scratch ka soo bilaabaan ay doonayaan inay taag iyo suudhka la xidho marka dee ilaad kaarinima loo bahaya doonad kaarin laga bilaabaan oo lahaa maxamed cali france aad baad u mahadsan tahay waad ku mahadsan tahay waqtigaaga qaaliga waad ku mahadsan tahay khibradaada wanaagsan iyo intii karaankaaga talada iyo tusaalaha waad ku mahadsan tahay 4 bilood in barnaamijka kulba qaab iskula eegaynay sidii wanaagsaneyd ee walaaltinimada iyo hogaaminta lahayd ee noo soo dhaweysay noola shaqaysay khayr Allah ku siiyo